kale degmada lagu magacaabo Cabdicasiis gobolka Banaadir waxa uu ciyaaray ciyaartoy badan garsoorku seeriga ayuu ka dhawaajiyay barbaarta degmada Shabeelle ciyaartan difaaca degmada lagu magacaabo Cabdicasiis ayaa kubadaas la ciyaaray Salax iyo soo kale ciyaaryahankan oo wada ciyaar ugu dambeyn waxay gaarsiiyeen goosha oo kubadaas goosha ayaa la soo furay halistay galeen ciyaartooyda degmada Rakinley laacibka lagu magacaabo Mursal ayaa ku dhawaada kubad kama inuu ka dhaliyay shabaqiisa محمد إريسو يا بدباشي محمد إريسو يا مصروفي محمد إريسو يا مسؤول كنقضي إنكو بداس مرسل وكسارو وحيات كبدا هلسا وحي ولا فهمي لاعب كلو مقاعو فيصل فاي حرد جناح يتلا غطر مركل عيارتودا دغمد ركنلي واكن لاعب كلم بركاي تمراد واو جوي واو وبشي ويداتين كبداسي ويل واي ساعتا كبدو ساعتا مركل كبداسي ولا سو ساري الله محي سعنيسا عيار قروح بدن الله محو سعنيا كلن عجيبة الله محي تاgeerayaasha ku raaxaysanayaan wax qurux badan الله محو ciyaaryahan walba sameynaya mas'uuliyad gaar ah iyo in dhinaciisa hoggaanka ay qabtaan waayahay dhaawac ayaa jira markan golayaha degmada Cabdicasiis ayaa dhaawac sheeganaya balaan daawano balaan milicsano gambiskii xirfadeysna uu sameeyay lambarka 12 ee degmada Cabdicasiis كاسو مقال واليها كسمية حريدة جناح دegmada lagu magacaabo Rakinley yahay waxaas uu ka tirsan yahay kooxda suuqyare xidigan waxa uu kamid yahay ciyaartooyda ugu saameynta badan ee sanadkan ay la shartagayaan kooxda Nuurikar khatar oh si kastaba kubadaas way baxday si kastaba kubadaas way baxday waxaasay ku dhamaatay banaanka inkastoo si waaliya waxa waaray inkastoo si wacan kubadaas uu ciyaaray inkastoo kubada si fiican uu soo jeeday ciyaaryahankan haddana laacibkan waxay ka hada banaanka Cabdicasiis ciyaaryahanka lambarka 16aad Ali Muxiidiin Artan garabka ayaa la soo dhigay markan lambarka 4aad banaanka haduu soo dhigo waa qatar ahyaa baas si kastaba kubadii la soo korosay waxa duubta laacibka lagu magacaabo Maxamed Iriisow isku leenaya dabcan waa Cabdicasiis baas fiican la soo dhigay markan قطر نور داخ يا سلام يا سلام الله محي فرصة كلا أبورين عيارتودا دقمدا عبدالعزيز الله محو بندق واليا سمانة يا نور داخ الله محي عيار حيسلاك سعونيسا انجنير إريسو سيكستوا كوباداسي والا يسار عيارتودا دقمدا لو مقعاب عبدالعزيز عياريان كلو مقعاب نور داخ ياسو كوباداسي بنان كلو يساري ayaa lagu kala maray sidaas darteed qaybtan labaad ee ciyaarta kaliya waxay soconaysaa kulanku 10 daqiiqo kubad qatar ayaa la soo dhigay goobalisa gool ay way ka barbaxsatay qatar goolaatso Cabdicasiis degmada Cabdicasiis ayaa dhisay Cabdicasiis ayaa hoggaanka qabatay Rakinley walbahaar ayaa u bilowday Rakinley warar ayaa u bilowday waa gool loo yaaqay sawaxan badan ayaa jira taageer walbo degmada Rakinley Cabdicasiis way ku raaxaysanayaan maadaama galabta ciidooda ay wiilinayso weligood maysan halan tartanka degmooyinka gobolka Banaadir hunguri uu ku jira sanadkan waa hunguri dili kara degmo walba ciyaaryahanka lagu magacaabay Idriis waa mid kamid ah mucjisooyinka tartanka laga dhaxlayo goobta la dhigay iyo qaabka kubadda loo dheliyay ayaa wax kala dhantaalay difaaca degmada lagu magacaabo Rakinley waa soo galabta ka kooban Ciise Mijo Xaashin Bile قبض يا الله وشوي دقمة لو ما قاعد بركنلي بعد عيارته سأزرت فلسفة كدوان أيو قيبت الله بعد عيارته لصوشر تجي هند واو باصي ويلوميان مركن وكان عياريان كلو ما قاعد حافظ وعياريان وقصامين تبدن إن عدك ماذا عبدالعزيز هارون عبد الستار محيدين هارا يا كوبا مركن هارا كروس حردا على soo dhigay yaas marka labaatanaad ee degmada Rakinley balaan daawano fursadii halistaheed uu isku dayay ciyaaryahanka lagu magacaabo Xaafid kaasoo kubad madfac uu diray shabaqa degmada lagu magacaabo Rakinley garsoorku seeriga ayuu ka dhawaajiyay waxa sagiba aan ciyaartay ku ilaata daawadayaal saaxiibayaal